السلام عليكم داوديال مeel kastoo dunida aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelanayno maayirkii hore magaalada Boorama Maxamed Xuseen Madane soo dhawo maayir soo dhawahay waan salaamay bahdiina saxaafada assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wahagaag intaynu su'aalaha iyo isxog waraysiga inoo galay waa kuma taariikhda Maxamed Xuseen Madane waanigan ku hor fadhiya ودقي هوري دغمدا بورما وانا كليتا qof la wada garanayo sida caadiga run ahaantii waxaan ka tirsanahay golaha deegaanka degmada Boorama xalka marka taariikh nololeedkooda gaabani runtii wuxuu ka soo bilaabmayaa iskuul hoose dhexe ayaan soo barnay dugsi sare ayaan soo gaarnay maalintii Boorama la soo galay nagu fanfora ayaa magaalada la soo galay ahayd aqoontayda waxay ku siman tahay heer jaamacadeed ma gelin marka runtii aqoontuna iyo way aragnimada iyo hawlo badan oo kala soo galno ganacsi kamid aha waxyaalo badan ka soo gudubnay duruufiyaadka ee wadanka ka jiray ka bacdina waxaan soo galnay golaha deegaanka waxaan go'aansanay inaan muddo u shaqeyno taariikh nololeedkayga gaabanayna iskuulka dhexe hoose dhexe tiraahdo waxaan ka soo bilownay dareemacaani waqtigii dareemacaani 80kii anagoo markaa fanfora ayay noogu dhacday qabti wadanku dunta wahagaag Maxamed Xuseen Madane adiga iyo team xildhibaan ah bariyahan dambe macaarad saayida tihiin ma la soran karaa adiga iyo teamkiinay waxaad macaarad u tihiin adigu mar labaad noqoto maayirka magaalada oo xilkii maayirnimo ku soo laabato horta xil wuxuu yahay soo aragnay xilkuna markaad qaadayso mas'uuliyad ummadeed oo qaadayso wuxuu leeyahay hadii adigu ad lafahaaga u turan weyneen Ilaahay ku abuuray kaga baqdo loo baahan yahay mid lagu degdegana ma laakiin waxana saameysay sanadii iyo barka imkan xilka ka sii maqanahay waa markii ugu horeysay shir jaraa'idii soo hor fadhiistay inta waxaan diidanaa sheyga la yiraahdo dhawaqa ee imka ka baxay waa mid ku kaydsamay laakiin cidii mas'uuliyadda imka haysay marka adigu gurigaaga iska fadhida iyadii hadda xilka haysay ku dacweyso ay hanti dhowr u yeedho ay waxay ugu yeedhayna wax iyadu ay gashay waxba qarin min maanta 15 bishii afraad 17 lacag $40,000 ahayd oo laba jeer u soo wada dhacday contract oo xafiiskii markaa anagu dahabshiil bay ku soo dhacday sheekayga lacagtu ma soo dhacay dabeeto hay'adii UNCDF markay noo soo darto qoraaleed tahay lacagta ay nagu soo qaltantay soo celiya xafiiskii lahaa iyanu celinay lacagtii nooca ahayd ayaa waxa dhacday inay meel kale oo fardhixdooda cidii gacanta ku haysay ka baxdo dabeeto gudoomiyaha eega degmadu isaga la galay qoraal ah in lacagta aanan degmada lagu lahayn degmada lagu leeyahay kabkeegana laga goosto waxyaalaha markii hore aan aamusnayn qarinayn hanti aan degmada lagu lahayn oo mas'uuliyadeeda leedahay inaad lacagta kabka degmada ka goosto tidaahdana waa xaraan qoraalkiisina hadda wuxuu yaalaa xisaabaadka guud nimankii hanti dhowrka u yeedhay oo la hal lacag maamulkii hore
qabay iyaa kabkaygii loo goosanaya kolka xisaabaadkii guud tageenna waxay ugu tageen qoraalkii isagoo qoray uu leeyahay lacagta kabkayaga ha laga goosto waa mas'uuliyad darro dhacday waana kuwa waxa ogaaday wax ka qaban waayeen iyagu ilaahay kala xisaabtamaya waanu sheegayaa maanta ma waxaad hadda macaarad u tihiin adiga tiim badan inaad hawshii shalay aad si xawiideen intaad mar labaad soo laabato aad saxdo mise waxa kugu jira xilaad isleedahay ku soo laabo maayarnimo intii degmada kulleeytaba de mas'uuliyad baa naga saaran anagu kuma aan tagnaadan mas'uulkii degmada ka tagay mas'uuliyad baa naga saaran ciidan meesha timiday inay wadadii sharciga qaado iyo inay qaadi weydo balse adigaan ku weydiiyay maanta intii aan ka tagay bal adigu qiimeeyo isbarbag dhig sameeyo maanta iyo maalintii aan xilka ka tagay farqiga u dhaxeeya maalintaan imiday iyo maalintan xilka wareejinaya farqiga u dhaxeeya waxaad og tahay maalintii xilka la ii wareejinayay in 270 kun oo deyn la soo hordhigay wad joogteen saacad 4 bilood ba shaqaalo mishaar lahaayeen xaaladii halka taagneed ba soo gaarsiinay inaan iyadoon mishaar iyo shidaal waxba aanan lahayn hadana 280 kun oo dollar oo 230 kun oo dollar oo ka ahayd lacag haydid marka aan ka tagno tiimeel ay ku dhacday lama hayo taa ka bacdigeed 400 kun oo dollar bala soo ama 400 kun oo dollar oo hantidii ummadani ay lahayd lagu soo amaahday oo lacagtii kabka lagu soo qaatay iyadoo lacagtaasi taala xaraamba weyneen horta iyadoo musiibo qaran dhacday weyneen lacag la soo amaahda sharcigu golaha deegaanka horena waanu sheegay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 23 qodobkiisa 19 wuxuu leeyahay goluhu awood uma laha inuu deyn soo qaato ka baxsan miisaaniyada sanadeedka uu dejiyay faqradiisa B waxay leedahay mas'uuliyiinta saxiixa u igmani haddii deyn miisaaniyada ka baxsan soo qaataan iyaga loo raacaya mayr adigu halka ii joogaya isug intaa waxa ka dambeysay in agaasimaha maaliyaddu maalinteedu la ansixinayay miisaaniyada ad ogeydeen inuu dakhli korodhay inuu yimid sheegay oo lacagtii 16 iyo dhowr boqol oo kun oo ahayd ku talagalka iyagu ay tagtay 8 lacagta marka la kala gooyay lacagta soo baxday waa 300 kun oo dollar lacagtaasi totalkeegu muxuu noqonayaa 280 kun oo ka tagnay iyo 400 kun oo la soo amaahday iyo 300 kun oo dakhli korodha kuma jiro hadda kharashkii kale layniga qaaday ee cashuurada hay degmada laga qaaday ama suuqyada ha noqoto ama kantaroolada ha noqoto ama kashtan habooramatii ka soo xiranaysa ha noqoto oo bishii noqonaysa 900 milyan mar labaad baan ugu celinaynaa dawladda haddii dawladdu ayna musuqmaasuq abuurayn annagoona waxba cunin baa layidhi waxba cunay maanta waxaan ognahay in 1 shilin oo Soomaaliland aanu ulin bangiga dhexe Soomaaliya mas'uul kasta markuu xilka hayo ma soo bandhiga dhaliilaha inta badan jira maxaa keenay in maalinkaad xilka ka tagtaan aad noqotaan dhaliil wadayaal sidan hadda aad sheegaysa imika iyo xogahan qarsoonaad shalay sheegi weydaan horta dhaliishnimo bijirin bada waqtigan anigu jiray sababtu waxa weeye qof Ilaahay ka baqaya waxaanu kala ma sameeyay ma dhicin lacagan soo amaahaday oo 400 kun qalab baan soo siinayaa idhi shaqaalaha bilaa mishaar ah rabadaan ku jira shaqaalahan u soo amaahanay mishaarkii bal ummadan 4 bilood mishaarka weeydi inay shaqayso waana la ogaa shaqaalahiina intaan iskugu darnay 4 bilood maadaama ay ciidi ku soo beegnayd ayaan bil kasta celinayna 15 kun oo dollar dakhliga degmaduna maalintii 9 milyan buu halka maanta 18 milyan oo ka yahay 16 maalin soo gaarsiiyay waxaan wax ka qabanay 7 wad 8 kiiloomitir
wadooyin ku dhow baan sameeyey wadada Galda Road wadadani bartanka marta ee airportka iyo wadada kale jariska xurta ka tagayso 2 kiiloomitir isku xidha wadadani roog aan saarnay sida Bilo Road wadada Meedana Road wadada Airport Road waxaan wax ka qabanay 7 xanaano degmada ku yaal waxbarashada iyo caafimaadku waa meelaha ummadani in laga koriyo u baahanta hantida ummadan laga qaadana in laga shaqeeyo u baahanta adigan ku weydiiyay bal maanta marka guri fooqa 6 bilood gudahood lagu dhisanayo anu kiraan ku jira 3 sano soo maalmo degmada waxaan anigu u dhisan waayay shacabkiina taweydiinayna hagaag maayir aynu taa ka nimaano waxaa jirtay xilligaad maayirka ahayd dadka badankooda waxay sheegayeen in xilka lagaaga qaaday inaad la shaqeyn weyday dawladda dhexe iyo xisbiga kulmiye arinta maxaa ka jiray oo siyaasadii dawladda dhexe iyo siyaasadaadu ay iskhilaaf badan ka yimaadeen horta wada shaqeynta Soomaalida sida u taqaano ma ha wasiir la horboodo ma ha lacag laaluush loogu geeyo ma ha hadal meel la soo fadhiisto waa systemka jira sharcigu wuxuu ku farayo inaad ku shaqeyso waxa la ii doortay waxay ahayd inaan degmadan u adeego badgeliyadeeda waxbarashadeeda caafimaadkeeda degdemiska oonan jirin oon abuurnay baahiyaadka aasiga ah isboortigood arkaysan waxaan ka qabanay oo aniga hortayna dhicin cid 2 koob soo qaaday garoonka 7 cisho gudbay baan sameynay waxa la rabaay hadii cid la iska dhaa anu sirdoon may laakiin maamul banaha dawladdu sharciga u dajisay lagu maamulo gobolada iyo degmooyinka hadii ciidan gaar ka doonayso danta gaarkii ma dhici karto inaad hanti umadeedo isticmaasho kada ilaahay ka baqayso way laakiin waxa loo baahan yahay degmadan maanta wad ogti xaaladida nabadgelyo way liidataa oo idinka ka marxaatiya waxaad ogtihiin wixii intaan xilka ka tagnay inaan waxba ayna qabsoomin iyadoo hantida inta lacag ay taalo oo waliba haysin shirkiisii jaraa'id walaalkeen aan waxan beena kama sheegay oo leeyahay waxaan soo iibiyay Beldowser waxaan soo iibiyay Rugley waxaan soo iibiyay Booyad Gaamur waxaan soo iibiyay gridati cagafta hoosta ku lahayd bal ilaahay baan inagu dhaashay saxaafada idinkan marxaatiyeedin haystay halka yaalaan soo taabtay ummadda degmada u dhalataatiin godka qashinka xilligaad maayirka ahayd iyo hadda labadaba waad ogeyd inuu soo gaaray magaalada xilligaas ballanqaad badan oo warbaahinta u sheegtay waxaad sheegtay in lacagteedina la soo shubay hawlgalkeena aad ku jirtaan una raadinaysaan meel bedelkeega halkii ku dambeysay runtii waan ka xumaa anigu ma yareysan hawsha waxaad ogeyd ciidamada qaranka iyaga cagafta Beldowserta in lagu hor joogsaday toor qayla anaga mareen dibti ka dhacday cid baan ku dhaawacnay dabadeeto dhaawacii iyo daaweyntiisii iyo hawshii noo taagamaan xilka ka tagnay masal la hayaa dabaday ma la qabtay lacagtiina maanta ma taalo dahabkil bitaalay maanta ka gol ahaan ma daba tagteen maadaama idinku doorateen maayirka horta goluhu qalin kulamo soo fadhiisiga ka horeeya qof in la isweydiiyo oo kala fadhiyadii goluhu codsaday oo qabto taabana la ogoleen sababtu waxa weeye mas'uuliyaddu waxay saaran tahay cid xilka haysa markuu goluhu cod soo qortay midadii kala fadhigu gaadhay qabo inuu qabto adeerkiiseen darad qofka run sheegay qofka been sheegay markaad weeraysanayeen gabadh wariyaa weydiisay siilada xoolaha kawaankan uu ka sheekeynay mafuyuu yahay marka qofka caynka u jawaabaya mise run buu sheegaya mise been buu sheegaya dadkan weydiiyay bar degmadani been uma baahna mu'amaraadna uma baahna nabadgelyo darrana uma baahna maanta waxaan ognahay oo furaha oo kula jira mas'uulka degmada ugu sareeyo meeshii reer Faarax Nuur
iyo reer maxamedku isku dileen ee ninkii sanjid loo odhanayay iyo ninkii darweyne loo odhanayay ku dhinteen in jagada ugu horeysay la fasaxay anaga daweyne cuntii muddo 3 sano joognay meesha waxa laba reer isku dileen maanta marka ma labadii reer baa nabadgelyada darrada degmada cidda ka shaqeynaysa inay mas'uuliyiinta degmada taan ku sheegaya kolka meeshii la isku dilay cid la siinayo ama isagoo faraha la galayo ma laba reer baa la isku dilaya marka xaqiiqada ka hadlayno shacbiyada reer Boorama iyo guud ahaan gobolka Awdal waxay idin aaminsan yihiin 22 xildhibaan oo isu duuban inaad ku fashilmateen howlqabadkii iyo waajibaadkiina saarna ma aaminsan tahay arrinkaas idinku adoo kamid ah golaha deegaanka degmada Boorama ma marka eedda dusha la iska wada saarayo mise marka ay tahay sifaha sharciga lagu shaqeynayo degmada marka laga hadlay 22 xildhibaan ee loo doorto sharci dejiye laakiin cid baa fulina fulinta meesha joogta waqtigii aan joognay maanta iyo idinku soo bardhiga inaan iyo waqtigii ay imika la joogo cid wax qabatay cid aan wax qaban cashuur shaadka la yiraahdo ganacsiga laga qaado had sanad kasta wad kordhisaan maaliyaddu idin la mid ma kordhiso sababtu maxay tahay xilligii maayir cabdi shidabi la joogay waxay ahayd 600 kun oo Soomaaliland hadda waxay maraysaa 2 milyan halkii wax ka qaldiyeen cashuurtin la qaadaa waa waajib laakiin waxa may cid laga qaaday waa cid sharcigu baneeyay oo cid sharcigu una baneyn kama qaadi kartid ma yidhagayso yeena moorno horta aan ku faansiyo marka cashuur noqoto cashuurtu waa noocyo badan bay leedahay shaatiga ka hadlayso kala ahtima cashuuraadka dawladda hoose qaadan loogu talagalay kala badhna wali ma gaarin guriga dhan ardayda 15 ka halkii dawladda dhexe ka qaado waad ogtahay maqsinka kirada ugu jira ta waxay qaataa $400 ku kiraysan yahay sanadkii waxay qaadaan $400 dawladda hoose maxay qaadaa $20 maxaa kaaga soo noqday marka taa $400 على مقصن لقاضي يكره تدولده وصلنا معك على قصة نقطة بالقيمة حتى marka cashuurtu in la bixiyo waa waajib laakiin korka laakiin waxa keenaya markii laga yimaado inaynu bulshadii wax lagu celiyo had iyo jeer in wax la kordhiyo idinku maxaad u aanaysan galfadhiye nooceeya waxa kordhinta keenaysa wixii macquul ah la kordhiyo anagu markaan wax kordhin anigu horta markaan mas'uuliyadda haji dadkeenu cashuurta ku daray cashuurta shaatiga iska daa tijaadka waa ku ka muddo haraadii darkiisii waa cashuur degmooyinka kala qaadayna xaqal cashiish la yiraahdo oo hargeysa qaadisay oo qofku markaana awal laga qaadi jirin maanta lagu bilaabo wuxuu arkayaa wax ku cusub marka cashuurta hal la qaado oo dawladda cashuur la'aan ma shaqayso ama tus hoose ha noqoto ama tus sare ha noqoto laakiin waxa qofkan aad ka qaaday tii wixii adeeg guud inaad ku celisaa laga rabaa dhawaan saldanada gobolka iyo caaqiladu iyo lahamaha amnigu waxay aad uga hadleen amniga magaalada Boorama iyo guud ahaan gobolka Awdal shacbiyadu aad u la sheekaysataa waxay ku leedahay magaalada iyo guud ahaan gobolka wax dhib ka jira ma jiro si kula muuqata arrinkaas kamaayir ahaan maadaama siyaasad ahaan faaleyn karto arrinta ka jirta degmadaada iyo gobolkaaga amni marka laga hadlayo amni diwa meel qaybo qaybsama inagu xaalad amni marka laga sheekayna Muqdisho iyo agaarkeeda la mid min Soomaaliland amni ba ka jira laakiin amniga degmada Boorama sanadii barkan u dambeeyay 3 sano ka horeysay isku mid baadan ku weydiiyay shacbiyadiina taa weydiinayna laakiin dad baa si gaar ah maxay heedeen cid baa propaganda gaar ah wadata dadku iyo waxa culimada ka hadlayay marka culimadu waa meelaha loo noqdo ummad marjica ah waa ummadda dhaxalkii rasuulka haysa waa ummad aanan been sheegi karin waxa soo kiciyay waxa habeen kiciyay baa leeyahay ayuu qabaay waxa culimada soo kiciyay wax kula yar baaday arrimihii ugu waaweynaa ee lagaaga qaaday xilka waxay hayd inaad taageersaneed bay shacbiyadu sheegaysay xisbiga wadani lana shaqo weeyday xisbiga kulme horta dhaqan baynu leenahay taana kaaga jawaab dhaqan baynu leenahay doorashadii ka dhacday waddankuna qabyaalad baahed markaan xaqiiqda ku wada hadlayno
dee hadduu qabiilkaygu cid u sharaxnayd oo ciddaasi mucaaradka ka sharaxnayd oon aniguna mas-uul qaran ahaa ma wadaniban markaa ku calaamadaysnaanaya baryahan sibay siyaasiyiin kala duwan oo Somaliland ka soo jeeda ay ka hadlaysay arintii xasuuq ahayd ee gobolka loo geystay siyaasiyiin badani waxay garabka ku dhufteen inaanan gebigaba wax xasuuqa laga geysan gobolka adiga si kula muuqata arintaas horta taa cidna uga habran mayno marka xaqiiq lagu wada hadlayo ma wixii dhacay ee dawladnimada ka dhisanay laga heshiiyey mise labadii 4 February wixii Boorama ka dhacay cidda oran kartaa Boorama Cabdilaahi Dirawal dhageyso warkiisa xal ma dhageysanaysa Cabdilaahi Dirawal inay Boorama soo galeen wax ku laayeen inuu cadeeyay waa lagu laayay marka cidda oranaysa cid anan gafgelin ilaahay ma gafgelin ummad lagu laayay Boorama sideeda u dhacday maalintaas waana joogan arday bananka koonfur laakiin waxyaalo badan oo markii ummad meel isku timaado laga heshiiyaa jirto war wixii hore halka naga dhawo dawladnimo ma dhisanaaba dhacday laakiin cidda la soo taagani ma jirin warde taariikh dhacday lama aasi karo oo idinka ka marxaati ka Cabdilaahi Dirawal ka marxaati furay xalay baryahan magaalada Boorama waxa aad ugu soo badanaya guryaha gubanaya arintaas inta halkeenay salka ku haysaad u maleynaysaa markaad qiyaasto wallahi marka xaqiiqda laga hadlayo dabku waa masiibo systemkeena dab waa waxyaalo imika wali systemka dawladaha caalamku gaadheen ma aynaan gaadhin bilowgiina uu yahay marka la yiraahdo electric sida safety-giisu inta badan loo ilaalinayo marka anigu ma qabo in cidi ka dambayso laakiin wixii qadar ah sinaba horta lagu baajin karo degmadeenu inaga daimkaaba dadku inagu cusubay hor dhaca laakiin wixii laga hortagay in la xoojiyo uma loo baahan yahay wixii aan abuurnay maanta hadeenan halkaas 3 sano yaalin bahaladaas dunida degmada Ilaahay aanay keenin sidoo baa oo leeyahay laakiin cidii ka soo saartay iyadoo halka ciidan aan shaqeynayno waagi waan soo xiraynay la lahaay wax markii qoladan waa qolada kaleetan horta anu mahad celiyo sharciga ku dhaqanta qolada dibadimiska la yiraahdo waxay diideen waxay imtixaan ka qaadan inay qaataan intaan lagu hayga ku socday oo wasiirada gobolka kamid ahaayeen Mixile iyo dadku mu'amaraadka iyo beenta badan Mixile yarkii kale wasiiru dawladaha iyo Mustafa Raxdoorintan xigay hay'adda dibadimiska balgeystan ku hawshan halkay ka caadilanta markay dhageysteen barbanqoti go'aan ku qaataan ku tiinaasan inagu raaxsanahay yimaada si fiigana 15 ku qabanayna imtixaan qaad ilaa baan ugu dhaashay sidii baa lagu qaaday cidii ku soo baxday tamaantii inuu adeegaysa waxaan u sameeynay raashin joogto ah shidaal joogto ah isbirbar joogto ah wixii nafaqo kale loogu darayo wix kale ka weyn inaan qabanno ya loo baahnaa laakiin nasiibkan aan ugu waxa kaasi wuxuu ahaa maayir Maxamed Xuseen Meedane maayirkii hore magaalada Boorama oo waraysi gaar la yeelanayay anigoo Nimco Umar Xuseen waraysiga idin la socodsiinaysay halku idin ka imanaya magaalada Boorama intaynu waraysigan waraysi lamida ku kulmi doono nabadgelyo